Horaantii bishii sagaalaad ee sanadkii tagay 2019 ayaa Shukriye Cali Aadan oo da'deedu ahayd 10 jir lagu dilay suuqa weyn ee Waaheen ee magaalada Hargeysa. Waxaana maanta warbaahinta la hadashay hooyada dhashay marxuumad Shukriye Cali Aadan oo magaceeda lagu magacaabo Deeqo Cumar Jaamac. Hooyada dhashay marxuumad Shukriye waxay si dareen la codsi ugu dirtay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed, taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale iyo guud ahaanba cid kasta oo arrintani khusayso. waxaan anigu hooyo dhibaataysan masiibo isku habsatay ilmaheega yar lagu dhex gogoyay suuqa Hargeysa agoona cidii ciirsiba weyday. waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, golaha baarlamaanka, golaha guurtida, golaha wasiirada, xeer ilaaliyaha guud, gudoomiyaha maxkamadda sare intaaba in cadaaladdeeda hoos loo eego. ana ilmahayga kibir lagu dilay muddada ay aasantahay 4 bilood tahay ayaa naagtii ilmahayga kibirka ku dishay ayaa laygu soo daayay anigoo ah hooyada dhibaataysan. marka horeba suuqa laygu dilay, sharqool baa laygu dilay, 2 naagood bay ahaayeen, midi aanay jeedinays midna ilmahayga bay qalanaysay. sida aan lay dilay maxaan maanta ku waayay cadaalad aan ku helo muwaadinimadii aan dalkan u dhashay aan joogo. sida aan geeriyeysan oo ilmahayga waayay oo gar iyo garooshinimo lay marin ilmahayga yar inta leega 10 jirka ee agoonta ah ee yatiinta ee waxba geysanin ayaro dhalatay dawladda Soomaaliland gudoomiyaha gobolka maxkamadda ayaro dhalatay ugu sii daayay xorriyadeedu magaalada ku taxtaash anna nabadgelyo waayaro ilmahayga xabaal ku jirto oo masiibo igu habsatay. dhankooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay dadkii goobjoogga ka ahaa markii dhacdadan lagu dilayay ilmahan yari ay ka dhacday suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. waxaan idin leenahay madaxweynaha ka codsanaynaa in gabadha wax loo qabto hooyada halka ku dhiban ee ay qabataana jirin ee inanteedii halka lagu bireeyay ee halka taga hormaraysa 24 saacadood adigana waan ku dileena anagu dadkii suuqa la joogay baan nahay ee xogaalka ee weligeed gabadha halkaana biir ku sheegaysa ilmaheeda yar halka ay gacanta salaada fartaaminta soo qabsato ee bilaad ka soo qabayay maanta waxa weeyaan dadkii wax loo qabto weeyaan cadaalad iyo dadka hoos loo eego. anaguna waxaan ka xunahay inanta yar agoonta halka midida lagu dilay suuqa bartankiisa ee dadku dawladdu sii daayeen madaxweynaha waxaan ka codsanayaa si degdeg ah inanta gacan ku dhigli dilay naga sii daayeen lagu soo qabto lagu soo celiyo barteedii. waxaan leenahay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo guurtida waxaan leenahay ilmaha yar carruurta suuqa dhexdiisa lagu gowracay ee 10 jirka ah ee dhibaataysan hooyada bartaa waagi bariba suuqa ku waysay ilmaheeda inta lagu hoos gowracay gabadhina cadaalad darro lagu soo daayay cadaaladda loo soo eego. suuqa ayaa ka dhacday suuqan Waaheen waxa xaq darro ayaa lagu dilay imakanayada hawsha aan la dhameyn baa intii lagu soo daayay reerkii markaa waxa qurux badnayd inta dhinac loo kala dhacayna dadka loo joogay markaa dilka faashxana markaa suuqa ka dhacay markaa deeqaynanteedii Allah u naxariisto in halka la sawiraayo ayaa qurux badnayd. Ibrahim Chokr, telefishinka Sahan, Hargeysa.